halkaa dhaafin digla oo lagu kabinaya digla lagu kabinaya niyo okay asxaabta gudaha ma usii dhaafi karno halkan waa sida idin soo sheegnay midowga Yurub waa halka loogu aramiyo ama loogu taliyo maanta halkan aan soo booqanay Faransiiskana waxaan ku joognaa howlo shaqadeena markaan dhamaysano isla maantana waan noqon doonaa Deutschland ama Germany sida u taqaanin ayaan u soo noqon doonaa hadduu Ilaahay karaal noqdo marka waxaan jecelnahay faniskeena ama dadka ku xiran channelkeega talaabo walboon qaadno meel walboon tagno inay nala socdaan haddaan subaxdii soo kacno haddaan quraacanayna haddaan qadeenin intaba ilaa waxba kala kharsana mogtahay marka maanta meeshaan aan joognaa nala socdo warkii idinku badin meena maadaama aan vlog sameynayno waxay ku fiican yihiin inay sheekada gaagaabnaato yes sababta aan meeshaan u soo duubayno waxay tahay waxyaabaha ay dadkan Europa ama Yurub ay ku horumareen hadda meeshaan waxaa loogu aramiyaa European Union way waxaa loogu talaa 28 dal oo Yurub ah markii laga reebo Ingiriiska oo hadda ka baxay Yurub markii laga reebo inta kale waxay ka tashtaan aayahooda ay wadamadooda siday u dhisan lahaayeen hadda waxa arkay anaga Deutschland aan ka soo baxnay ama Jarmalka xuduud inaan soo marnay inaan Jarmalka ku jirnay inaan Faransiis ku jirnay adigaaba sheegay wax xuduud la dhaay ma jiraan caadi ah isku gudbooyaa nabadgelyo lagu nool yahay marka annaga haddaanahay Soomaali ama Afrikaan inaan maseerna Sooma xornimada noocaan aan raadino horumarka noocaan aan raadino Afrikana ay isku imaato oo meel sidaan oo kale ay yeelato oo dawlooyinka dawalka Afrika loogu aramiyo marka annaga haddaan Afrikaan nahay ama khaasatan Soomaali waxaan qaadanaa waxyaabaha xunxun waxyaabaha nadiifka oo loo baahan yahay bulshada horumarin karana waan ka tagnaa marka tan tusaalaha idin noqoto nala socdo